booliiska magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway ayaa maanta oo Sabti ah waxa ay toogasho ku dhaawaceen weliba dhaawac aad u culus ugu geysteen nin 30 jir ah oo ku handadaya booliiska iyo haweeney ku sugneed xaafad ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Oslo. Booliiska ayaa lagu soo waramayaa in ay si degdeg ah ku gaareen guri ku yaala xaafadda Lindeberg ee magaalada Oslo, halkaasoo laga soo wariyay in nin uu handadaad iyo cagajugleynba ku hayo mid ka mid ah guryaha ku yaala halkaasoo ay ku sugan tahay haweeney iyo qof kale. Booliiska ayaa si degdeg ah goobta ku gaaray waxa ayna isku dayeen in ay xaaladda xakameeyaan, ha yeeshee markii dambe ayay dareemeen handadaad iyo cagajugleyn xad dhaaf ah oo kaga imaanaysay ninkan 30 jirka ah taa oo ku qasabtay booliiska in ay rasaas culus la dhacaan ninkan ilaa uu dhulka ka dhaco. Waxaana lagu soo waramayaa in loola cararay isbitaalka halkaasoo hadda lagu dabiibayo iyadoo la soo sheegayo in dhaawaciisu uu yahay mid aad u culus. Taliyaha gurmadka degdega ah ee magaalada Oslo, Nikolai Bakke Handen, ayaa isagu ku waramayo in markii ay gaareen goobta oo ay dareemeen khatarta ku wajahan booliiska iyo haweeneyda la handadayaba ay go'aan ku qaateen inay ninkan u adeegsadaan rasaasta noolnool. Waxaana lagu soo waramayaa in ninkan markii la toogtay kadib halkaasi laga soo qaado hubkii uu watay, iyadoo ay booliisku ku waramayaan in ay hadda baaritaan iyo dabagalba ku hayaan goobta waxa dhacay iyo sida ay u dhaceen ay wax ka weydiinayaan markhaatiyaasha iyo dadkii guriga ka agdhawaa. Booliiska ayaa sheegay in hadda ay kiis ka furi doonaan arrintan, ha yeeshee ninkan dhaawiciisa lala tacaalayo. Waxa ayna intaa ku dareen in haweeneyda uu handadaya ninkan iyadana la keenay qolka gurmadka degdega ah ee isbitaalka halkaasoo lagu dabiibayo, inkastoo ay booliisku sheegeen inuusan jirin dhaawac muuqda oo ay qabto haweeneydan. Qof saddexaad ayay booliisku sheegeen in gurigan ku yaala xaafadan magaalada Oslo ka tirsan ay ka soo wadeen iyagoo aanan carbaabin da'da qofka iyo waxa uu yahay lab iyo dhidigba, ha yeeshee waxa ay sheegeen qofkaasna in uusan jirin wax dhaawac oo uu qabo. Sidoo kalena waxa ay booliisku xaqiijiyeen dadkii gurmadka degdega u tagay iyo sidoo kale booliiskuba inaysan jirin wax dhaawac oo soo gaaray, ha yeeshee ninkan ayaa hadda lagu dabiibayaa mid ka mid ah isbitaalada magaalada Oslo iyadoo la soo warinayo in uu qabo dhaawac aad u culus. Booliiska ayaana hadda wado baaritaano ku wajahan waxa dhacay, sida ay u dhaceen iyo sidoo kale mas'uuliyadda ninkan iyo hawsha sida ay ku bilaabatay. Magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu badan ee ay ka dhacaan dhacdooyinka noocan ah marka ay timaado guud ahaan waddanka Norway. Halka warka kiisa ugu doorkoroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.